waxaad rabtaa inaad waxbarato kuna guulaysato isla mar ahaantaana waxaad rabtaa inaad ku ciyaarto telefoonkaaga daawato muuqaalo waxaad rabtaa inaad la baxdo saaxiibada waxaad rabtaa maalinku wuxuu ka kooban yahay 24 saac kaliya dhammaanteen waan jecelnahay inuu ka badnaan lahaa maalinku 24 saac laakiin 24 saac kasta way dhammaani mana imaanayo waxaan ka heniyadaas weligeed sidaa darteed waxaa kugu waajib ah inaad garato sida ugu wanaagsan ee aad uga faa'iideysan lahayd waqtigaas aadna dayicin dhab ahaantii halkaas waxaa ahaaday waxyaabo badan oo aad rabto inaad samayso sidaan hore kugu soo sheegay balse su'aasha muhiimka ah halkan waa maxay arrinka ugu muhiimsan arrimahan oo dhan waase maxay shayga haddii aad samayso aad ka faa'iideyso maanta iyo beriba waxa muhiimka ku ah cidda xadidi oo tartiibina waa adiga hadba faa'iidadeeda duruufaha iyo marxaladaha nolosha xaqiiqdii shayga ugu muhiimsan uguna sareeya muhiimaadkaaga waxa imaanaya waxbarashadu waa shaqadaada waxbarashadu waa midda xadidaysa mustaqbalkaaga waxa ugu horeeya wax walibana ay imaanayaan gadaasheeda waa shayga ay waajib kugu tahay inaad ku bilowdo aadna siiso waqtigaaga oo dhan marna ka mid maaha muhiimaadkaaga inaad ku ciyaarto ama rogrogto baraha bulshada maxaa yeelay waxba kuma faa'iideynayso weliga mana ka yeelaysa mustaqbalkaaga mid wanaagsan muxuu u faa'iideynayaa inaad gaarto like tusaale ahaan Facebook ama Instagram maqaalo la dhacay dadkiina la dhaceen waxaad soo dhigtay kadib maxaa ku xiga waxaad dayacday waqtigaagii waxaadna ka tagtay casharadaadii helitaanka like-aad iyo inay dadku kugu tilmaamaan shakhsi dadka ka qosliya waxaa laga yaabaa in arrinkan uu ku siiyo raalli ahaansho iyo farxad xadidan laakiin haddii aad rabto inaad noqoto qof guulaysta waxaa kugu waajib ah inaad mar waliba fiiriso berito mustaqbalkaaga aadna halkaasi ka dheehato natiijada waxaad soo samayn jirtay sidoo kale musalsalada aflaanta iyo tartamada marna ka mid maaha muhiimaadkaaga wax faa'iido ahna uma laha mustaqbalkaaga saaxiibadaada haddii ay yihiin kuwa wanaagsan way qadarinayaan duruufahaaga baro xilligaa dhihi lahayd maya waajib kugu maaha inaad la baxdo saaxiibada mar kasta oo ay kugu dhahaan ma baxayna baro sidaad u noqon lahayd qof mas-uul ah hana noqon sida caruur raadinaysa keliya waxay ku ciyaarto baro sidoo kale sidii aad u xadidi lahayd muhiimaadkaaga garo waa maxay arrimaha sanadlaha ah mar waliba ku bilow shayga muhiimka ah waana waxbarashada iyo dhammaan noloshaada sidoo kale ku dabaq qaacidadan ku bilow shayga muhiimka ah u gaar yeel saacad tusaale ahaan waxyaabaha sanadlaha ah ama maalin isbuuciga ka mid ah adigoo ka soo shaqeeyey isbuuca oo dhan balse marka hore xaqiiqso inaad ka soo baxday arrimihii lagaa rabay una istaagtay waxyaabihii kugu waajibka ahaa naftaada horteeda iyo mustaqbalkaagaba suuragal kuma aha inaad hal waqti aad wax waliba ku samayso dooro waxaad u kallihi lahayd waxaad u kallihi doontaa waxbarashadaada iyo mustaqbalkaaga se waxaad u kallihi doontaa waxyaabaha waqtigaaga luminaya